والسلام يا دمان bahda saxaafadda iyo shaqaalaha madaxda wariyaha.com waa maxamed cumar baakaay oo ku sugan magaalada muqdisho xamar waa xamartaad ogeedeen waxa la soo maray dhibaatooyin aad u kulul aad u xanuun badan oo dad fara badan oo saaxiibo ahayn ehel ahayn qaraabo ahayn ayaa runtii dhintay siyaabo kala gidsanna loo dilay runtii dhibaatadaasi halkaas ay ahayd laakiin dhibaato markii ay magaalada ku badatay su'aasha maxaa ka jira baakaay inaad dhabar ku qortay warhooy intaad toogan i warayso waa yaabay waa naxay waa cabsaday markaan arkay asxaabteedii oo lagu guurayo oo lagu socdo anigana qof magaalada aad loogu yaqaan ahay 2 maalmood oo guriga ku jiray waa asqariyay maalinka dambe duruuftu waxay qasabtay inaan baraan ku soo baxo anigana qof walba yaqaan marka waxaan is iriniyo kulley qofku wax dilaayo waxbu aqriyay dhabar ku qoro warhooy inta toogan i warayso xitaa lama daqiiqsi marka 2 daqiiqo waxa uu talgal calooshan ka soo horiyo dho walaalow aniga hooyay dhashay ilmaan leeyahay wali soo koriyay inta sabcay u baxday hal balooto $1 joogto ma ugu diray marka fanaanada ahayd fanaanadan ku buufiyay warhooy intaadan itoogan i warayso adiga feedbackgaasi runtii waa dad badan arkay magaaladii waa li hadal qaaday hadalkii oo dhan marka maxaa la yiri ninkaas hortiba sheekooyinka raadiyo ka sii sheegi jiray riya $100 cunto iyo warhooy caawiyaan laga sixaniyo waxaas waa la yiri marka alxamdulillah kulley wixii waqtigoodii dhamaada dhintay anaga wili nafta waan ugu jirtaa laakiin